haddaba maxaad ka taqaanaa dhalaankii dhayalka mooday nolosha oo doonayay inuu isdhaafsiyo jacayl dartii dhaawac ka soo gaaray isoo tuuritaankii sababta u noqotay gabadhii isagu jeclaa ee laga guursaday bundada degmada Waaberi ayaa iska soo tuuray jacaylka dartii ka gadaal markii uu maqlay in gabadha nin kale uu guursaday haddaba warbixin ayaan idinkaga diyaarinay anagoo Baad Raja Cable TV oo aan ku booqanay maanta hoygii maamada dhashay ayaa inooga warbixisay xaaladiisa caafimaad iyo imika wuxuu ku sugan yahay imika waxaan ku suganahay hoyga uu ka degan yahay Cabdi Maxamed Nuur oo ah inaan markaas daayar oo dabcan maalmihii dambe qabsaday baraha bulshada waxaan la joognaa maamada oo markaas xaaladiisa iyo aan ka wareysan doono magaceeya Faadimo Nuur Cumar Cabdallah dhaho waxaan ka hadlayaa wiilkay Cabdi oo ka soo dhacay bundada Waaberi wallahi bilaa talaad meeshaan oo jiifa wixii walaalay had yaraad badnaan isoo tuureeyeen had caanihiis imsheerihiis aan ku sameysanayaa haddana daawadii ay dhimankii walaalo ani had oo isoo kaalmeeyay dalka iyo dibad inay soo daweeyaan jeclaa wiilkay inay daweeyaan jabka waa jiraa run waaye jabka waa soo qaad istaalkii jab ma la soo sameeyaan 120 waa soo dhiibi jab had ay sheegeen waa run waa jiraa jabkii nacay waay waa soo wadi wadaadka oo waxa keenay oo dawoodii ah wadaadkii markuu keenay oo wuxuu sameeyay $200 aan rabaa $200 kii hadii heshii in la dhiibo anina wixii gacanta ma ku haayay sababta loo soo saar waxa siiyay lacag la'aan darteed doob si lacag ahaan anigiina baxsi dhaha waa gartay guriga ka haystaan ma soo watay madaxa wareereen dhiigo ma tag jiri madaxiya wareeri waxaan jecel kalshay aan hor dhigta laakiin ma khalmaak ani had cadeen had uu haayo way ahaan ma sheekari caruurta ma joogteen waa caruur had isdhib badan waxaan ku tashtaayeen hooyaysan xujur ma loo dhahaa galool anin isku aabiis ma isfurni garoowayaan oo arday waxa uu dhigay iskoolkan oo kan iskool jira caafimaad maray jaamacadii oo dhimili jaamacadii magala anigiish waxaas waxa ka jira malaha gabarta seeti aabihiis naag asqawo gabar oo dhash waa isku meel joogeen walaalay ahaayeen waxaas waxa ka jira ma jiro walaashiis waa aabihiis gabarta ma qabo habarta aniga dhash waxaan qanaa gabadhaas walaashiisa aadi jecel sheegayna ويكال شيء مؤمن الحاس مشي كري أنا مسكون مال مجوجين هاي أنا جعلان أفكيس مقبقنا هدي بحية أو مقال أنا بدين هاي الحاس وحق جرو ما لها وناي أرنت الشيخ قبلت الشيخ تبوندو يتيري معامل إيدا يتيري يقول لازم مربي أنا صوتورة هاي صوتورة أنا صوتورة أو هاي وحاس وحق جرو ما لها هذا مجوا هذا ما شاء الله هذا كستم شيرها هنا الحمد لله هذا شعبنا محانك أصها أنا جرابة أهاي بيس وحماسة يا مفانتي ملكان أنت سحورية وحبة بسيبانية أنا مقعنت وحم كجرو قف ولا لا وحب معنا هاد وقعن مرمي ولا لا شيء حنجعله درك يدبك إنه يسوي حريريان waxaad markaasi daawanayseen warbixintii aan u ka diyaarinay wiilkii markaasi daada yaraa buundada markaasi ka soo dhacay oo aan maanta hoygiisu ku soo booqanay waxa markaasi hadlaya waxa ahayd maamada dhashay Cabdi oo markaasi xaaladiisii markaa inooga warbixisay waxyaabaha badan ay ka hadashay waxa qayb ka ah caafimaadkiisa oo hadda karoon ama ka soo labnaanaya sida hore isbitaalkiina waa laga soo saaray sawo xagga dhaqaalaha oo lacago ayaa markaasi lagu sheegtay inay bixiyaan haddii aynaan bixin lacagta isbitaalka markaa laga saaro weli waxaa jira lacago markaasi lagu soo kabay oo markaa laga rabo sida maamada hadda ka dhawaajisay waxna guud ahaan baaqay u dirtay dadka ku dhaqan caalamka Soomaaliyeed iyo ku muxsiniinta inay markaasi uga soo gargaaraan oo ay caabiyaan si uu markaasi canuga daada yar uga soo bogsado Ashraf Adibaas Maali Xasan Raja Cable TV Muqdisho